Aan diyaargarowga doorashada xildhibaano xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dardargeliyowga dhisowga maamulka golaha deegaanka degmada Baraawe may haytay muhiimada socdaalka madaxweynaha Usahan Deeri magaalo xeebeedka Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku ambaqaaday fulinta qorshayaalkaas iyo kulan iska jari isxog wareysi shal warqaadasho la weeldadii odayaal dhaqanka mayna kulanka intii u socday ku qaybgalayaalka kulanka iyo bogaadiyana siyaasadda xasiloon nabdoon ee madaxweyne Laftagareen ka hogaamiyahay deegaanada Koonfur Galbeed mayna dhinaga kale iyo ballan qaadana antiyo ku goonta antiyo garab suluman dowladiyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo qaybo shal duwan bulshada caasimaddan ku mahadnaqay doorjoogka eedan garab sulumowga iyo ku shaqeeyowga horumarka magaalada Baraawe maynu soo xusay kan dowladaan inta ku goonta anti magaalada Baraawe iyo dhisan maamul doorado shacabka salan hirgeliya mashaariicda iyo baahanyiin bulshada. Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa dhinaga kala tilmaamay anti Baraawe sidan ka dhaqsiyaha badan laga qabado doona doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qaybo shal duwan bulshada nuusan ka baaqay antiyo qaybtii ku qaadan sidii doorasho nabdoon iyo Baraawe ku dhigi lahaaytay. Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo muhiimada kulanka warbaahinta dowladdan ku warbi. Bismillahir Rahmanir Rahiim. way bagge kamil raay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdigiisa hogaamiyay oo maalinimada shalay booqasho ka kooy Baraawe caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wafdigaas oo meel raay iska koobanay wasiiri iyo qaybaha kala duwan ee dowladda isla saasoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya saasoo kale booqashadiisu shalay ka kooy qayb ku hay iyo madaxweynaha geeka kulamo may walwalday odayaasha dhaqanka degmada Baraawe taasoo meel raay madaxweynaha ka guurgalay uu ku xog wareysaday odayaasha dhaqanka xaaladda guud meel raay amni iyo dhaqaale iyo bulsho ka jirta ku jirta meel raay degmada Baraawe taasoo xaqiiqdii madaxweynaha sida caadadan hay'ti degmooyinka booqashooyinka ku sameeyo uu la kulmay qaybaha shal duwan bulshada xaqiiqdii mayba meel raay odayaasha dhaqanka degmada Baraawe madaxweynaha ku mahadnaqayna sida uu dhowr jeer booqashanka kooy caasimadda isla saasoo kale inuu mar walba uu la kulmahay odayaasha dhaqanka muhiimadda siyaasiga iyo tixgelinta iyo horumarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku sameeyay Baraawe marka intaas ba meel raay ku mahadnaqayeen isla saasoo kale madaxweynaha iyo warbixin way ku sii safar shay inta ka aadanay oo aan ka muhiimsanahay booqashada in meel raay uu sii ra'iisul wasaaraha ka kooyan caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Baraawe ujeedadan ka weyn hayti maadaama dadka Soomaaliyeed iyo xilliga la jarab la socdaan hel doorasho Baraawna ku mid ah deegaan doorashooyinka Koonfur Galbeed oo lamada magaalo ee Baydhabo iyo Baraawe siyo aan booqdan xaqiijiyan in meel raay shaqada meel Baraawe yeeta aan diyaarsanteen doorashada la ka qabada iyo amnigi intaba silan xaqiijiyo markan way haytay tilanka kuurgala kora silanka qabada meel raay doorashada Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Cabdicasiis mar walba may hormuud ku haayay sidii wadankan ku dhiifadii doorasho xor ah oo meel raay helis la ka waday markan waa xaqiiqdii madaxweynaha odayaalka iyo bulshada reer Baraawe mayba warbixintaas ku siiyay ani dowladda diyaaran ah sidan ka dhaqsiya badan meel raay ka bulshahan diyaar garoowan sidii baarlamaanka 12 doorashadiisa oo ka diyaar garoolaan aqalka hoosena maadaama deegaan doorashada lamaadiyata isla saasoo kale madaxweynaha iyo booqashooyin jeemay ku mid haytay safarku suntan kooy soo odayaasha dhaqanka ku warbixiyay dowladda Koonfur Galbeed may muddooyinka dambe ay Baraawe ku waday dhismaha golo deegaan ee qaban qaabadiisa horeen socday oo bulshada wada tashi wasaaradda arrimaha gudaha la wadi bulshada qaybo jashal bedelan sidii bulshada iyo aan isku doorada fadan golo deegaan oo meel raay xaqiiqdii bulshadaas ku xulo doonta madaxweynaha meeshay dowladda intii meel raay diyaaran ah odayaasha dhaqankii bulshada reer Baraawe diyaaran nagalan isla saasoo kale sidan ka dhaqsiya badan sidii golaha deegaanka Baraawe la dhisay odayaalkana doorku ku aadanay maadaama ay dadka xulo doona saddex doorada doonay in odayaasha dhaqanka aan diyaar garowaan dowladana diyaaran ah madaxweynahana meel raay balanqaadshi ku mid haytay intii dhammaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmooyin shal bedelan la ka dhisi doono golayaasha deegaanka isla saasoo kale dowladda meel raay mayba lagu warbixiyay mashaariic dowladda ka fulay doonta Baraawe intaas ma haytay meel raay warbixinta madaxweynaha iyo odayaalka isku sii way rajeey doona insha Allah maalmaha dhowna ani madaxweynaha daah furo doona dhismihii golaha deegaanka degmada Baraawe hadii Ilaahay raali ka naga
kulankun lunku hadalaya xaaladda degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed meeshaasoo kaleed ku qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Dr. Ali Saciid Fiqi wasiiro ku tirsanay xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo maamulka caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed magaalada Baraawe.